waxaad ku soo dhawaataan barnaamij ku saabsan taariikh oo aan ku qaadaa dhigi doono mid ka mid ah halgamayaasha Soomaaliyeed oo magaciisu yahay Axmed Gurey. Magaciisa oo saddexani waa Axmed bin Ibraahim Al-Ghazi. Waxa uu dhashay sanadkii 1506. Waxa uu ahaa hogaamiye, imaam, daaci diinta dadka ku faafiyo, isla markaasna ahaa suldaankii boqortooyadii Adaltaasi, isla markaasna ku duushay dowladdii awoodda badneyd ee Abyssinia oo ka talinaysay dhulka Itoobiya. Imaam Axmed Gurey waxa uu u dul qaadan waayay xasuuqa shacabka Muslimiinta iyo baadda halkaasi looga qaadi jiray ee ficilada foosha xun oo had iyo jeer ay ku dhaqmi jireen dowladda Abyssinia ama Itoobiya. Si kastoo aad u garanayso, imaamka ayaa ficiladaasi ka xumaaday. Wuxuu isugu yeeray bulshada qeybaheeda kala duwan ee Muslimiinta ee ku dhaqnaa deegaanadaasi, wuxuuna ku booriyay inay qaataan go'aano cajiib ah oo ay la dagaalaan gumaysigan ilaa ay la dagaallamaanna inaysan ka bixinin gumaysiga iyo rafaadka haysto iyo dhibaatada lagu hayo. Wuxuuna ka dhaadhiciyay inay dagaalamaan oo xurnimo ay tahay waxa kaliya ee muhiimka ah ee laga doonayo in ay helaan. Dagaalo badan ayay wada galeen gumaystihii Abyssinia oo watay hub casri ah, ha yeeshee waa ay ka guuleysteen. Sabarkooda iyo geesinimada uu shiiqa ku beeray dadka, asigoona ku boorin jiray inay cadowgan iska dul qaadaan, haddii kale ay weligood ku jurayaan gumaysi kan ka sii xun iyo mid kaleeto oo aad u foolxun. Waxay sidaa ahaataba, dagaalo culus oo taariikhda ay xustay ayaa halkaa ka dhacay ilaa Itoobiya laga baray inay cunto hilibka cayriinka. Taariikhda waxaa laga diiwaan geliyay inuu imaamka iyo ciidankii uu horboodayay ay ku kalifeen dowladda Itoobiya inay xilliga ciidamadeedii cunaan hilibka cayriinka. Shacabka dhammaan dagaalada oo ahaa kuwa isdaba joog ah ayay ku qaadi jireen ayaa la yiri. Waxay qabsadeen magaalooyin muhiim ah sida magaalada Harar oo gacan ku hayntooda ay la wareegeen imaamka iyo kooxdii uu hogaaminayay oo halkaasi qabsaday, isla markaasna ka samaystay saldhigyo aad u waaweyn oo ay kaga duulaanka cadowga. Cadowga sidaa kuma joogsan, waxa uu soo qaadi jiray dagaallo lixaad leh oo had iyo jeer uu soo aruursan jiray hub iyo ciidanba. Waxaa jilbaha dhulka u dhigay una aastay imaamka oo xilligaasi hogaaminayay, wuxuuna ka guuleystay cadowga asigoona cashiro lama ilaawaan u dhigay Soomaalida iyo adduunka oo dhan. Taariikhdiisa waa laga xusaa. Waxaa kaloo taariikhyo kale soo baxaya ay sheegayaan in halkaasi weerar ay ku qaadi rabeen Abyssinia iyo Xabashada iyo hogaamiyaashii gaalada oo dhan oo is aruurstay iyo gaalo kaleeta. Kacbada waxaa la sheegaa taariikhdaasi in uu hor istaagay afkana ciid u daray duulaankii guracnaa ee la doonayay in Kacbada wax lagu gaarsiiyo. Imaam Axmed Gurey iyo koox uu watay oo ahaa koox jihaadoon ah, halka ayay rajadii Kacbada inay burburiyaan ahayd ay ku soo afjareen. Soomaalidii deegaanada ku dhaqneedna waxay ku soo dhaweysay iyo Muslimiinta qeybaheeda kala duwan ee Itoobiya gudaheeda ku dhaqnaa reereyn, farxad iyo waxay halkaasi ku soo dhaweeyeen damaashaad u baahsan. Taariikhda nooc kastoo ay tahayna waa laga xusaa dhammaan taariikhdan hogaamiyaha weyn ee Axmed bin Ibraahim, isla markaasna lagu naanayso Axmed Gurey. Qaybtii ugu horeysay ayay ahayd oo aan ka soo qaadanay, isla markaasna aan isku taxaluujinay in aan ka sheekeeyo. Qaybo kale ayaan idin soo gaarsiin doonaa. Sidaas waxaan idinku leeyahay channelka idin soo gudbinaya waa Dooxa Media Channel. Fadlan waxaan idinka baahanahay in dhiirigelin aad xoogan aad halkaasi ka muujisaan, si subscribe aad u saartaan channelkan aadna ku soo dhawaataan. Waxaad ka heli doontaan xog